subaxnimo markaad afartiyo yani konton afartan kacdo aad si fiican isaga diyaargarowdo eed sunnahaagii tukato eed salaad subax tukato waqti badan baad haystaa taasi marka waqtigaa badan aad haysto sideedda haddaad kici lahayd 3 saacadood baad already advance tahay oo already aad advance garayso yani hayst tahay ood hore yani kasii hordhacday dee 3 saacadood badan baad ku qaban kartaa waad ku jimicsan kartaa naftaada waqti kula qaadan kartaa waxbaad ku qorsheyn kartaa waxbaad ku akhriyi kartaa shaqaad ku qaban kartaa laakiin intaas waxbaad ku qaban kartaa oo haddana aan waqtigu dhaqaaqaya si kale marka loo eego psychologically saameyn bay nagu yeelatahay cadceeddu hadday kaa soo horbaxdo den waxaad u aaminaysaa in maalinkii kaa hor bilaabmay then this is why qofku caajis niyad jab culays badan uu dareemayo si kale marka la eegayana subaxii waxaweyaan waxaa ku jirta caafimaad baa ku jira like hawada subaxii naqiga like waxay saamaysaa jirkay saamaysaa then isku mid maaha kolley waad aragteen waa jabsanin badan kolley qof waxaa garanaya salaad subax kaaga waqtiga salaad subax markaad kacdiyo markaanad kicin inaad ka habsaanto si wanaagsan baad u garanaysaa yani farqigaaga xataa productivitygaaga maalinta xataa u yaraan psychologiyadaada yani niyad wanaagaaga maalinka iyo sida yani aad u degan tahay way ka duwanaanaysaa maalmaha kale yani xilliga dambe kacdo marka iyada waxa qayb kaa inuu qofku saamileylo then xilli dambena uu karo dad habeenkii hurdo kugu filan heli weydo 7 saacadood 8 saacadood oo waqti hore yani aad seexan weydo waqti horena aad kici weydo then caqabad weyn bay yani kugu imanaysa this why dhalinyaro badan stress ku yihiin yani stress badan ugu furmo culaysyo maskaxeed ay dareemaan tabar la-aan ay dareemaan inaan waxba qabsan karin quusna ay dareemaan qodobka saddexaad isagu yani energy drainka keena waxaa kamid ah in qofku fishanku ka lumo haddii aragtida noloshu kaa lunto wax badan baa yani kaa khalkhalaya laakiin saad u socoto yani fishanka yani noloshaadu iyo halkaad u socoto like hadday kaa lunto nin hanba lahayn then adaa isku meeraysanaya comfort zonekaaga dhaaf maysid comfort zonka haddii dhaaf weydana waxa weye natiijooyin ma helaysid aad ku farxdo natiijooyin aad ku farxda haddaad heli weydana waa niyadjabaysaa darisiba marka inahani waxay naga saacidayaan ku sheegaya yani qodobadan haddaad tahay qof ganacsada ah oo doonaya inuu horumar gaaro adduunya aakhirada amba aad tahay qof inuu doonayo inuu isbedel sameeyo qasab maaha inaad ganacsiga ku jirto laakiin dee siyaabo kala duwan baa jiro lacag loo sameeyo marka muhiimadu maxay tahay laakiin inaad noqoto qof productive ah